بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا معدك إسبين waxaan ku jirnaa casharadeenna muhiimka ahaa oo la xiriiray wanaajinta macaamiisha iyo ahmiyadda ugu weyn ee shirkad marka la furo ay tahay ilaalinta macaamiisha sababtoo ah macaamiisha ayaga lagu tiirsan yahay oo marka maanta waxaan baranaynaa ama aan qaadanaynaa buuggan fiidiyoyaashiisa oo dhammaystiranna waa diyaar waa kuma cidda ku shaqaalaysiisay waxaa laga yaabaa inta badan shaqaalaha ama dadka shirkadaha ka shaqeeya in ay u maleeyaan in cidda shaqaalaysiisay ay tahay hebel oo ninka managerka ah kala hadlay oo shirkadaas mas'uulka ah laakiin jawaabtu waa maya sababtoo ah ninkaas u baahneen baahi shaqaale hadaysi jirin oo macaamiil badan oo loo adeego oo sahaysan kuma dalbahay adiga kuma shaqada kuma geey karo shaqo waxa lagu geey karaa waa inay jirtaa baahi macaamiil loo shaqeynayo oo shirkadaas ka banaan markaas ka bacdi ama nin hebel ii gali ama hebel ii taageer iyo ha iska imaato laakiin marka hore waa inay jirtaa baahi adiga in lagu shaqaalaysiiyo keentay waana shaqaalaha waana macaamiisha haddii la waayo macaamiisha cid ku shaqaalaysiinaysa malaha adiga waxa kale waa tusaaleyn yar waa okay haddii aan sii wadano fahamkeena guud ee ahaa cidda shaqadaada mas'uulka ka ah waxa badanaa ku soo baxaya cidda saxda ah ee ku shaqaalaysiisay cidda saxda ah ee mushaarkaaga goyn karta ama uu ka yimaado waa cidda saxda ah ee ay tahay in aad u mahad celiso shaqaalaysiintaada okay Allah subhanahu wa ta'ala kadib cidda aad u mahad celinayso in lagu shaqaalaysiiyo waa macaamiisha waa kaas haddii aan tusaale idin soo qaato waxaa laga yaabaa in shirkadaha waddanka aad ogtihiin in markii koowaad lagu bilaabay cidda iska leh kaliya macnaha laba nin ama dumar oo ahaa milkiilayaal okay milkiilayaal ahaayeen dadkaas ayaga shirkadda isku keenay ayaga fikirka keenay waaya ka bacdi maxaa dhacay marka haddii ay helaan macaamiil waxay u baahan yihiin shaqaale waxa asal ah marka waa macaamiil waxaa laga yaabaa shirkado in ay maanta shaqaalaysiiyeen ilaa 6,000 oo shaqaale kuwana ay joogaan labadii qof ee asaastay waa maxay baahida keentay 6,000 oo shaqaale in ay shirkadan shaqaalaysiiso midna inteedii joogto qofkii aqal u saaxiib ah waa garan karaa waana macaamiisha marka 6,000 oo qof oo tusaale ahaan $200 ka qaadanaya shirkadan oo $12,000 ah $12,000 ninka shirkadda iskale ama gabadha shirkadda iskale way jeclaanad in jeebkeeda ku dhacdo laakiin ma awoodo sababta ku kabeexayso ama ku qasbayso in 6,000 oo shaqaale oo midkiiba 200 qaadanaya ay shaqaalaysiiso waa macaamiisha haddii ay macaamiil waayo ama macaamiisha soo badana wax intooda baahidooda ku la eg tahay qof kale dambe shaqaalaysiisan maayaan laakiin haddii bisha dambe ay u baahdaan 1,000 kale oo shaqaale ah waxa sababaya 1,000kaas kale u baahan yihiin shaqada iyo baaxadeeda iyo in macaamiil loo helay ayaa saacidayso marka intaasaan ku soo gabagabeynaynaa fiidiyoyaashiisa oo dhammaystiran iyo buugga intaba waa diyaar insha Allah waa nala soo xiriir kartiin waa mahadsantihiin assalaamu calaykum